sidaynu wada ogsoonahay adduunyada aynu ka mid ka nahay dowladaha hoose waa dowladda ugu dhow shacabka dowladda ugu dhow shacabka sida tooska ugu horeysa dowladda dhexe iyo dowladda hoose shacabka xigta maxay ka xigtaa waxay ka xigtaa xagga horumarinta iyo xagga serviceka iyo xagga wada shaqaynta intaba dadweynaha iyada xigta dowladaha hoose marka ay wanaagsanaadaan ay shaqadoodu fiicnaato ayuunbaa horumarkuna uu dhammaystirmayaa dalku waxaa jira qarankeena qorshe la yidhaahdo NDP waa qorshe horumarineed oo ah National Development Fund National Development Plan baan jeedaa National Development Plan baa jira NDP da oo imika targetkeedii ugu dambeeyay uu yahay 2022 oo ay ka wada shaqeeyaan xukuumadda Somaliland iyo donorsku shantii sano mar la qoondeeyo wixii horumar dalka la gaarsiin kara si wada jira iyadoo la iska kaashanayo horumarinta dalka haday noqoto infrastructure-kii haday noqoto waxyaabaha kala muhiimka ah sida la jigeed dowladda hoosana dowladaha hoose caalamkuna waxay leeyihiin waxa la yiraahdo DDF ama District Development Framework oo noqonaya qorshaha dowladda hoose ay horumarka ay wadanka ku gaarsiin karto qorshaha ay dadka ugu shaqeyn karto inagoo Afrika oo daliroska aan wali la ictiraafin oo aad u liitaa haddana wixii yar hadaynu si fiican u maamulno wax weyn oo qabsan karaa imika tusaale ahaan anigu soo qaadan maayo dowladaha reer galbeedka iyo kuwa horumarka waaweyn gaaray qaaradan aynu joogno waliba bariga Afrika wadanka Congo la yiraahdo Uganda Rwanda ayaan tusaale soo qaadanaya Paul Kagame madaxweynaha Paul Kagame la yiraahdaa waa madaxweynaha wadanka dagaal ku qabsaday siyaasad meel kale ku qabsatay uu wali wareegtay dagaal muddana wuxuu ahaa dictator wadanka ayaa looga yaqaanay wadanka wuxuu ku haysta haddana maanta wuxuu gaaray heer wax qabadkiisii uu dhaxalsiiyo in mar labaad inta la soo dhawaan doorashadii ugu dambeysay ka dhacday wadanka uu cod qeyr caadi ku guuleystay isagoo ka guuleystay siyaasiyiintii shacabka ee xisbiyada mucaaradka sababta uu kaga guuleystay waxa weeye wax qabad iyo horumar uu dalka gaarsiiyay waxa la yiraahdaa Rwanda maanta waa dalka labaad ee Afrika ugu accountability-ga fiican leh ugu dowladda wanaagsan reer galbeedka baa taa u qiray jaamacadaha waaweyn ee adduunka ee Mareykanka iyo reer galbeedka lagu barto public administration maanta tusaale ka yahay waxa la yiraahdaa Paul Kagame style handaan gaar ahaan tusaale uga soo qaato qaabkiisa dowladaha hoose ee Kagame style waxa jirta dowladda hoose sideena ayaa loo soo doortaa 25 xildhibaan waa noocyada soo kale dowladda hoose 6 biloodba mar waxay sameeyaan qorshaha aan ku sheegay DDF District Development Framework oo noqonaya maadaama dowladda hoose tahay fixed area iyo local authority in go'an macnaha dowladda hoose Hargeysa maanta xaggan haday u dhaaqo Salaxley bay gaaraysaa Balgoodley gaaraysaa Gabiley bay gaaraysaa inta Hargeysa ee ay xukumaan ayaa u gaar ka la rabaa horumarkeeda inay sanadkii mar ama 6 bilood mar u fadhiistaan kadibna ay sameeyaan qorshaha DDF 6 bilood ayaa mar la sameeyaa Rwanda ama caasimadda Kigali qorshaha horumarinta kadibna waxay waliba qaateen qorshe la yiraahdo participatory budget waxa weeye waxa bilaabay wadanka Brazil magaalada la yiraahdo São Paulo ayaa birigii hore dowladaha hoose caalamku inta iyagu dowlad hoose ahaan soo qiyaasaan wixii uu dalku ama magaaladu u baahan tahay horumar ayaa ay iyagu intay qorsheeyaan ay miisaaniyada ku jaagoyn kareen saasa lagu qaban jiray wixii la qabanayo sanadka laakiin São Paulo sidii ka duwan bay bilowday maayarkii biriga haystay São Paulo wuxuu bilaabay wuxuu war dadku inaan dusha ka geyn horumare iyaga ha loo tago oo hal la yiraahdo degmo waliba maxaa kugu daran way degmooyinku waa kala baahi mid baa biyo u baahan mid baa u baahan iskuuleen loo dhiso mid baa dhakhtar u baahan mid baa u baahan sariibad mid baa u baahan garoon ay kubadda ku ciyaaraan mid baa wadooyin u baahan inta la sameeyo
waxaa jira guddiyo la yidhaahdo CMG ama community monitoring group oo u dhisan in ay daba galaan horumarka ay dawladda hoose u qabanayso xaafadaha imika tusaale ahaan waddankeena waxay nadaashaday qabiil xildhibaanada xitaa qabiil baan ku dooranaa adduunyada laakiin waxa lagu doortaa xaafado macnaha boqolkii xaafadood ee is-ag yaalla ee jaarka dan gaara ka dhaxaysa oo ta qabiilka ka sokaysa waxa laga yaabaa meel qura Hargeysa inay 100 guri oo isku qabiil ay wada deganeen laakiinse 100 guri oo jaar waa qasab inay wada deganaadaan 100 ka guri ee meel wada deganina waa isku target waa isku ma garanaysaa goal oo waxa ay rabaan environment wanaagsan service iyo horumar bay rabaan sida laajigeed dadku waxay ka koobayeen community monitoring group baa jira dabadeedna markii dadkii ay soo bandhigeen wixii ay doonayeen degmo waliba imka tusaale ahaan Axmed Dhagax oo kale ay tiraan ugu sanadka waxaan doonaynaa 2 wado iyo in loo dhiso sariibad iyo dugsi sare waa laga soo qorayaa 26 Juun Maxamuud Haybe gacan libaax mid walba waa la tagayaa waxay u baahan tahay laga soo qorayaa marka laga soo qoro ayaa budgetkii dawladda hoose sanadka wixii soo galay ee lacag u available ayaa la eegayaa waxa lagu jaangooynayaa wixii dadku ay rabeen marka la isku jaangooyo ayaa haddii ay u suuro gasho degmo waliba waxay codsatay waa loo wada qabanaya haddii u suuro gali weydana siday u kala priorities kala raacaya siday u kala muhiimsan yihiin infrastructure ka ay doonayaan ayaa loogu kala qabanaya marka arintaa la ansixiyo waxa la soo dhigaya oo la soo bandhiga waxa la yiraahdo open data waxa way qaab la xisaabtan maadaama ay dadweynuhu yihiin kuwa ugu horeeya la xisaabtamo dawladda hoose marka laga yimaado dawladda dhexe oo iyaduna wasiirka arrimaha guduhu ay toos u hoos tagto oo ay la xisaabtamaan dawladaha hoose haddana waxa si gaar ah u la xisaabtamo community-gi soo doortay kadib waxa dhacaysa nidaamkaas oo boolo ama ay qoladan kalena qaateen sidoo kale Paul Kagame iyo Rwanda waxa weey dadkii waxa loo soo bandhigayaa sanadkan dhaqaalihii dawladda hoose soo galay imika tusaale ahaan dawladdeena hoose Hargeysa sanadkii waxa soo gala $8 milyan $8 milyan waa in sida ay u qarash gareynayso ay ummadda u soo bandhigtaa tusaale ahaan qarashaadka ama qaabka loo qarash gareynayo lacagta dawladda hoose soo gasho waa laba nooc waa recurrent expenditure iyo infrastructure expenditure recurrent expenditure wuxuu noqonayaa wixii ku baxa service-ka macnaha dawladaha hoose sida mushaar bixinta telefoonadooda waxyaabahooda u gaarka shaqadu ay ku socoto stationery-ga ayaa la yiraahdaa recurrent expenditure waa qarashkiiga ku baxay ee hawsha ku qabteen ta kalena waa qarashkii ay ummadda wax ugu qabanayeen ee infrastructure ay wax ku dhisayeen ama bridge ku dhisaan ama dugsi ku dhisaan ama waxay doonaan ku qabtaan sidoo kale markay inta soo bandhigaan ayaa waxay soo qorayaan xaafad kasto oo ay laga aqbalay in loo dhiso waxa lagu dhijinaya kulmeedka kale Axmed Dhagax oo kale waxa lagu dhijinaya boordan waaweyn oo ah billboards oo lagu cadeynayo waxaanu sanadkan u dhisaynaa Axmed Dhagax 2 wado oo ku baxayso $300,000 socon doonana waa in time framework la helaa socon doonana 2 bilood iyo 10 cisho kadib waxa kale oo ay oranayaan iskuulkaas aanu dhisaynaa oo isagana lacagtiisu tahay 180 ama 150 muddadu ku socon doonana waa bil iyo 15 cisho ayaa boardka lagu dhijinayay qaabka iskuulka weegiyo qaabka wadada weeg tahay dadku way la xisaabtaan ishooda ku arkayaan cashuurtii si fiican bay u bixinayaan waxay dadkii dhiiri gelinaysaa waxay markaa oranayaan sanadkan intaasana soo gashay intaana horumar baan ku qabanay intaana kharashkii dawladaha hoose u noqday intaasina way noo soo hadhay kadib halkaas wuxuu noqonayaa indicator-ka ama qaabka lagu garan karo in dawladda hoose wax inoo qabatay iyo in kale ileen haddii iyagoo 8 milyan soo galeen ay 500,000 magaaladii dhanneed ay mas'uulka ka ahaayeen wax ugu qabteen intii kalena la waayay ma waxaan oran karaa horumar bay qabteen maya waxumay qaban wadankii waa la dhacay markaa waa in marka la doonayo in dawladda hoose wax qabato la ogaado wixii soo galay waa inay soo bandhigaan markaas la xisaabtami karaa arinta waxay dhaxalsiisay qorshaha markay ku shaqeeyeen magaalada Rwanda inay noqoto magaalooyinka ugu quruxda badan Afrika magaalada koowaad talabaad baa la talabaad ee Afrika ugu quruxda badan ee ugu nadiifsan bay noqotay waxay noqotay evergreen meel kasta waxa kaga yaala cagaar dadkii dawladda wada shaqeeyay waxa weey maayarku hadii uu boardka
uu ku yidhi wadada ama waxaasaan qabanayaa 15 bish labada bilood 15 ka cisho iyo lacagta uu sheegay haddii waqtigii uu ku dhameyn waayo uu iscasilayaa waa sharciga Uganda u yaala madaxweynaha ayaaba toos u soo fargelinaya haddii iscasilin waayo dowladda hoose wasiirka arrimaha gudaha way dhaafaysaa waxaanay leeyihiin wasaaradu gaar ah wasaaradda dowladda hoose oo gaar loo xisaabtanta aniguna maanta waxaan ku talinayaa in loo sameeyo dowladaha hoose maadaama wasaaraddeena arrimaha guduhu ay culus tahay waxyaabaha ugu weyn cusleynaya amniga iyo sugidda ammaanku ka mid tahay in wasaarad gaar oo dowladaha hoose la xisaabtanta horumarinta ay dalka u sameynayaan in loo sameeyo ayaan kula talinayaa madaxweynaha imaka dowladdeena hoose waxaynu uga baahannahay in ay dadkeena maadaama maanta dowlad cusub wadankii ka dhalatay bal waxaanu eegi doonaa annagu xisbi mucaarid ahaan sida ay dowladda dhexe sidaan horeba u sheegnay 6 bilood hore si dalka wax uga qabato iyo qaabka ay ula xisaabtanto dowladaha hoose si horumarka wadanku kor ugu qaadmo dowladaha hoose la'aantood dalku horumar ma gaarayo marka waxaanu leenahay dowladaha hoose waa in la xisaabtamaa waa in wasaaradu gaar loo sameeyaa waa in malasanaawi madaxweynihii hore Itoobiya oo isaguna qaabka dowladaha ay qaatay boolkigaami oo kale haddaan imika saba ka imaado oo markaad sidaa aad sabo gasho dowladda hoose waxa ku qoran boodhar waaweyn oo ay ku qorantay wixii dowladda hoose soo galay sanadkan iyo lacagtii sida ay u kharash gareyn doontay wax ugu qabanayso qof kasta markuu arko dowladda hoose inay transparent tahay cashuurta uu bixinaya dowladda hoose jigjiga oo inta ogtay noo jirta qabalee kasta waxa ku qoran wixii loo qabanayay dowladda hoose u qabanaysay iyo waqtiga ay qabanaysay iyo muddadii lagu qabanayay iyo lacagtii lagu qabanayay board ku yaala wuxuu markuu saa transparent u noqdo wadanku horumar buu gaarayaa haddii kale ay jiidan ku jiiday gacmo ku daalis ayay noqonaysaa waxaan kula talinayaa ugu dambeyn maayarka iyo golayaasha deegaanka in ay fadhiga ka kacaan haddii hore dadku uga jeedeen maanta waxaan leeyahay waar xaafad kasta oo Hargeysa ka tirsan ha samaysato guddi horumarineed oo aan qabiil ahayn oo iyagu iskood soo xilqaamay oo dowladaha hoose kala xisaabtama cashuurtii ay bixiyeen waxay ugu bedeshay haddii aanay dadku la xisaabtamin dowladda hoose oo ay ka seexdaan waxay doonaan bay sameynayaan dowladda dhaxanayaduna waa inay la xisaabtantaa oo la xisaabtanka kor loo qaadaa qof kastoo mas'uuliyad la saarayna ma aha inuu u qaato waa waqtigii adigu lacag urursanaysa waxaaga ka qaado waa inuu ilaahayna ka baqaa kuna xisaabtama dadkiisana wax u qabto